أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم. إلهي محمد الله سبحانه وتعالى إفرضي أن المسلمين تأوسوا بندقوا الشقة دي waxay tahay ما يشوف waxaan ka shaqeeyo qofka muslimka waa inuu cadeystaa khayrka uu ka shaqeynayo. waxaan ka shaqeeyaa dad ogtahay hadaadan ogeyn boolal dadkan quraanka saara ilaahay baa mahad iskale subhanahu wa ta'ala. qofka xanuunsan ee xanuunka xaq ilaahay uga yimi iyo midka shayaadiinta ay u sababta tahay sida sixirka jinniga iyo isha ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barayaa dadka masaakiinta ah ee isha ku dhacday ama sixirka waa ama jinniga waayo cid Allah leh cidaan kulano ilaahay uu ka dhigo qof ilaahay subhanahu wa ta'ala u qadaray in dadka sababtiisa ku caafimaadaan. الشافي هو الله مثل واحد دوي إلهي سبحانه وتعالى. أنت كذب حرب عاون كهذا على مدى بدن وقال إلى أفرتن هذا إسكور التوقي بكم ذا وحضو بأنت حقيقة أهان إن هذا القرآن إسسارته أما إزعل جزء إلهي سبحانه وتعالى هكوسي غير بدن نمع بدن إلهي سبحانه وتعالى هكون حريصته وحرب qofka calaamadaha isku arko waa qof jinni ama ilaa ama sixir saasoo kale ku dhacay way sida aan in badan ummadda muslimiinta ilaahay subhanahu wa ta'ala u daweeyay aan ka soo dhaxlay gudahooda. waxaan rabaa qodobka koowaad waa 40 qodob oo isku dhex jira way. qodobka koowaad hamaansi fara badan qofka iska dhahay bilaasoo maxaa ku dhaca qofkan waa iska hamaansanaya mar walba waa calaamada isha qabso iyo xanuun galabkii qabanaya gelinka dambe galabtii uu bilaabanaya xanuun baa qabanaya galabkii uu bilaabanaya subax waa shaqaysanaya galabkii qandhahaysa maxaa ku dhaca waa xanuunsanaya. qodobka labaad wuxuu yahay walaalo hurda fara badan qofkan waa hurda warma shaqaad waa ka dambaxaya mar dhow baan baxaya oo ka dhacaya hurdo ishu waxay leedahay hurdo qofku waxay gelinaysaa hurday gelinaysaa wal billahi ilaahu naga kor rabbiyo jirka ka xanuuna oo bursantahay inta laga haya jirka ay xanuunaya habeen iyo maalin waa taaysa inta laga haya war gacanta hayga taabanin war dhabarka hayga taabanin oo maxaa kugu dhacay jirka ay xanuunaya intee ku xanuunaysa meel gooni u sheegi kara maraha waa jirkiisu dhan waa min madaxa ilaa cirib. qodobka afraad wuxuu yahay jirka ku dibaaxinaya jirka oo meel iska dibaax calaamada waa jinniga iska leh jirka dibaaxiska ah ishana way leedahay jinnigana uu leeyahay ama meel kamida ayaaba ku dibaaxinaysa meel kamida dibaaxis ka dareemaysa. ilaahay baa mahad iskale subhanahu wa ta'ala iwaafajiyay qeyrkaas aan walaahay u soo gudbinayo. indhaha baarkoodan oo dhagdhag ku dhaha isha iskala iyadana waa calaamada lagu gartay isha way. waa qodobka shanaad way. dhinaca baararka waxay sameynayaan waa nooc isha lagu garto way. fa il ku dhacday ama asibta il ayaa laga dareemaya.
قف كان ودال أفراتك الساعة ودالين دال ودالنا ومحكو داعي وما هذا قام لما تحمان سوق من محكو داعي ما والله اسك دالنا إيش إسكلا يدنا قفك وحكينا يا كادي فربضن وضبك الطلبات وحيه قفك وحدرين يا كادي فربضن بدرين يا سكر ما يعيسى ما سكر با يعيسى سكر ما يعيسى كذا فرح بدن ilmaha ku dhacday ilmaha habeenku isku kaajeeya ilaa weeyaan hadaba ogow cunuga hadoo kaadi badan ku aragta dilin isku day inaad quraanka saarato insha Allah taala adiga aad ku akhriso kaada ilmaha habeenkii 16 jirka 18 jirka waxaas kaada u imanaysa oo gubasho ku kaajeeyo isagoo la soo kaadsiiyay waa nooc min al-ilway qofka weyn miya musqusha ku sii wada mar walba isku shaacada isku soo baray negative wali كذا بدن يهدنا تذكر ما جرت وعلامة الوقت هو أيضا إيش وقدر كسيدي هذا ودنا حنون جوكتا ودنا حنونية ودنا حنونية ودنا حنونية ودنا حنونية ودنا حنونية مر البوع حنونية ودنا ما يودنا هو اللي جيده يا بقف ودنا جيدتان سائل لو قبنا يدموديس اللي جيده والله ودنا الله يجاهيا وإيش وعلامته وحيلها ولا جيدة يا قفك أما ولا مدة ودناها مدتان بقى لو سمينها مدة ودناها اللي هي أساس اللي هذا هو اللي ويانا هذا العلامة داس ودنا قراءة جوكتا جك 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 استركتك وكعسية ودنا حاجة هي برشة كبارة نيجاتيف هو ما قبل ديكر ما قبل لكن قف كاسو هاي هو إلوي علامة إلوي بدون كسجالات هالكل جيرك جيرك كلك كبحية أو وبدن عيسى جماعة وكله لما جماعة جيرك سنة حلقة ما مياه كويسة نوع من الإلوي وحناق يا قف حناق فرا بدن يلنيا ما هو النحية نحدين مركو جيفتك وسبوديها أما أساس نيزة شيء وعادية أيها الدرهم النحدين والله وحكى بقي ميغان وحكى عبصري ميغان مالكيسا دريمية نحدين فربضن مو دريمية غفاس مركي قدر كتبناد ويكالكو يتبنادنا ونحدين فربضن قفك وحاكو لا يسهر دياري إيشو حالة ده هردو دي قادع هردو ولا تكتابا قفك واسو جيدا وحاكو لي يعني مسيحا قفك هردو كو يرانيسا boqolkiiba boqol dhalinyarada maanta joogtana waxa hurdada ka qaado waxa kamid ah oo u eg in maartay soo kale mobilka ayaa wataba aalad wuxuu wataa qof hurdada ka wadayso taasi waa saas marka qofkan isha ay ku dhacday isagana hurdo la'aan buu dareemaya iyo riyooyin xun buu dareemaya sida adigoo lagu ceyrsanayo adigoo duulaya jinniga qof ku jira waxa lagu gartaa wuxuu ku riyoonaya soo duulaya waa jinni calaamada jinniga uu leeyahay weeyaan adoo duulaya hawada lagu marsiinayo meelo dhaadheer oo laga soo tuurayo aday ku ceyrsanaya bahalla waaweyn oo adduunka aan joogin kaas waa qodobka 12aad weey midka 13aad aan gudubno wuxuu noqonayaa caajis fara badan buu qofka dareemaya caajis fara badan ayuu qofka leeyahay والعياذ بالله الله ينكريه قضبك أفريتوناد نبرير ير المدو يا كاسو بحيا كلها يا دبرك دمبي وجهك كاسو بحيا وعلامة الوي قالوا إيش سيدا أوجد إلهي سبحانه وتعالى عن كبر يا قفل بالمسلمة وعلامتها اسكو أركا إنه إلهي جل جلاله كجبو أما كبابيو waxa isha ama jinniga dadka oo dhan oo la coloodo bila sabab wax sabab oo dadka ku la colooday ma taqaan adaa la colooday il olba la noqotay dadka dhan olba la tahay kama rabo inta kama rabo qofka sixran calaamadaas lagu yaqaan ilaahay baa garanay subhanahu wa ta'ala dadka si kala oo adiga waxba ka sameeynin bila sabab
dadka oo iska kaano adiga waxba ka sameeyay bilaa sabab qofkana u tagaysa ama shaqaalaha la shaqeynayay wajiga ku bedelayaan taasoo ku fiirinaya kasalad maxaan sameeyay waa calaamadaha lagu garto way qofka maaragtay masxuurka ah shaqo tagaya shaqada waa laga ciirinaya dadka waxa leeyahay dadka naga wada meel kale tagaya wala shaqada la qoraya hadana markuu saddex baan u shaqeeyo waa ka cararaya qodobka 17 waxa weeyaan ilaa shafar badan buu qofka dareemaya ilaa ma leeyahay waa ilaa calaamadaha lagu garto qofka inuu wax qabo waxa kamid ah dhididka faraha badan mar walba waa dhididaya qabow iyo kuleel haday jiraan ba labadaba dhididaya qodobka 19 waxbarashada qofka cuslaanaysa qodobka 20aad wuxuu noqonayaa waxbarashada qofka cuslaanaysa iyo fahamkana waa ku yaraanaya oo ka adkaanaya inuu wax fahmana waa adkaanaysa waxbarashadana aad iyo aad ayuu ugu noqonayaa leys meeshuu ka keeni jiray 100% wuxuu keenayaa 50% marka dambana wuxuu noqonayaa 0 buu noqonayaa qofka ila la ciriyo waxbarashada marka dambana wuxuu leeyahay mar rabay iskool insa qofood baa nootibin ilmahooda saas leeyihiin ilaahay caafiyo qofka inuu wax qabo waxa lagu gartaa habeenka markuu seexdo waa isku junuubaya ama shahwada ka soo daadanaysa ama soo kacay shahwadiisa banaanka intuu soo kacay liyaadu billah wuxuu noqonayaa qof mahsan كلاتن waxa way qofka wuxuu noqonayaa qof mahsan wala abdiyo kuma maqlay waa mahsan meel kale ku jira mawjad kale la haysta hooyo kale waa leeyahay markaas uu leeyahay intuu soo fiiriyo kasi jeesanaya oo maxay dhageysanaysaa kuma dhageysanaya maqay qofkan habsan way 22 waxa way muuqaalka qofka jirkiisa baaba'aya marba marka dambe waxa ka sii dhumaya marba marka dambe waxa ka sii dhumaya ilaahay subhanahu wa ta'ala caafiyo qodobka sahlaatanaad habeenkii marka aad seexato ayaad ku riyoonaysaa adigoo afka cunto lagu gurayo qofka seexan waxa lagu gartaa wasiirka maakuulka ama mashruubka cunayba waxa lagu gartaa afka cunto loo gelinaya mid qof waxa laga yaabaa inuu ku riyo isagoo raamsanaya cunto afka loo geliyay isagoo raamsanaya oo subax waxa xanuunsanaya caloosha barraysa isla subax waxa xanuunsanaya maxaa yeelay waxaas waa jin weeyaan qof waxa laga yaabaa inuu qabta qaada afka loo gelinayo inuu diido oo tufo ayaa laga yaabaa marka labadaba saameyn bay ku yeelanaysaa qofka tufayna saameyn bay ku yeelanaysaa qofka cunana saameyn bay ku yeelanaysaa uu dareemayaa subaxii marka wariyada loo garto qofkaasi in la cunsiyay qayb ka mid ah saxarka wal billah lahaatan marka qaar cunahaas ayaa ku danqanaya ama waxaad moodaysaa in eejo lagu hayo in lagu hayo marka qaar bal waxa laga yaabaa in wax cuni weyso inaad wax ka cabi weyso waxna ka cuni weyso laga yaabaa oo ciriiri ka dareemto diiq waxa laga yaabaa qofkan hadduu sahran yahay ama maaragtay saas oo kale jinni uu ku jiro shanqarta waa dhibay jabaqda yarta oo maqlay waa dhibaya aad bay u dhibaysaa hadalka bini aadamkana madaafiic waa ugu darayaan laba qof oo hadal isdu arko ama ma maqlo dhagihiisa aad u dhibayaan sidaa awgeed waxaan kugu talagalay inaa adiga faa'iido ah qofkan fiirsanaya ee muslimka ah ee ku hadla luqadan Soomaaliga ah waxaan ugu talagalay walaalo inaad noqoto qof muslima oo ka faa'iiday hadalladan aan sheegayo qodobka 9 wuxuu yahay eridka dhiigay hadduu cadaysto qofkan haddii markaas oo kale ama ilkaha uu sixir ka qabo ama qaaxada gudaha sixir uga jiro mar walbo cadaysto ilkiisa waa dhiigayaan mar walbo cadaysto dhiig saa'id oo tufaya qofka fara badan waa yeelanaya qarow fara badan buu yeelanaya hurdada dhexdeeda ayuu ku qarwaya wal iyadu billah
riyo kugu soo noqota waa riyoonaysaa qof aad garanaysaa ku riyoonaysaa qof aad garanaysaa ku riyoonaysaa qof aad garanaysaa ku imanaya qof aad garanaysaa ku dhaaranaya waxa soo dhan ama qof aad garanaysaa dhimanaya waxaad ku riyoonaysaa qof aad garanayso dhimanaya ku riyoonaysaa halka aad ku nooshahay guriga aad ku nooshahay oo aad ka abuurto isqabqabsi dadku isqabqabsadaan si maala yacni adana abuuray qofka xanuunsan ayaa abuuray waxaa laga yaabaa lagu kala guura sababtiisa ama hooyadii aabahii dhalay sababtiisa ku kala guuraan oo mid ay tira ninka waa xanuunsan yahay mid ka mid ma xanuunsana wilka ma xanuunsana ma qabo hooyadii ay tira waa xanuunsan yahay hooyooyinka maanta dhibka u haystaa marka hooyooyinka muslimiinta ayuu dhibka haystaa dhibka waxa way jirka oo ku dhamaanaya wali waxa dareemaysaa lafajajab lafaagu waxa mooysa inay jajaban yihiin ma arkaysa marka ilaaj dhagaha gashato ama quraan damcayna ay saarto matag ayaa ku soo qabanaya ama hurda ku qabanaysa shaqada lagu adkeeyo adoo xirfadeed leh jaamacad ka soo baxday abarta dhaqaalaha baratay meesha tagtay shaqadii way waa ku qaabilinaysaa soo kale annaga ku soo wacayna telefoonka isa saarna ku soo wacay adoo shaqadii yaa lagu adkeeyay subhanallah waa xirfadeedii waa leedahay aqoontii waa leedahay waxaad qof bartay marka meesha tagto waxa dhawo wallahi waa lagu faxaya hal leeyahay annaga ku soo wacayna subhanallah waxa iskale sihirka iskale wal iyad billah ويهي أخرنت قرآنك أدخل لبنتي هذا أسكت بتو كتابك كلا فرتيد آيات أخرنت هذا هذانا رأس لها بيسابة وأسكت بت آيات دي قرآنك أخرزي قرآنك ما دام يستري كرت ودبولي سا أما مركز بقراءة استراحة آيات قار أما بقول قار آيات كل بيا وعلامها جني وقفك قبائل لقوية قانوي أما ساسوك سحرا والعياذ بالله adigoo dhibsanaya isticmaalka taleefanada iyo tiifiyada inaad badsato wax habboon maaha aan ku soo celiyo oo lagu soo wacay qofkan waa ka cabsanaysaa qofkan ku soo wacad ka cabsanaysaa bal telefishinada dadka ay fiirsadaan markaad indhahaaga saartana waxa laga yaabaa inay markaas wax ku suurad taas kor ku yeeshaan ama aniga dib oo wax ka aysan qolka fadhiga qolka aad degan tahay leerka ku xiran ama nalalka cadcad ee qolka ku xiran ama guriga fadhiga ku xiran ayaad dhibsanaysaa qolkaaga soo galaysaa leerka waad dansanaysaa leerka maxaa u mas'uul waxa la mar raba iga daa mar raba aniga والعياذ بالله حق جوركا ولا جورتا قفك وليس كسارا جورسو ما جورسنا يجدا جورسو ما مستقبل على مستقبل هذا حتى هو أنا هو قمته أبي أنا هو قمته وقت يساسو كنا مارينين نقول فيه هبة أفرت سنة خروج العافية أفرت سنة كنت سنة والله أعلم إلهي بقرني markaad guriga aad degan tahay maxaafada deganta ka safartid xogaa nafisa dareemaysa gurigaas waxba ku jira guriga qofka uu degan yahay hal la baaro barkimaha meelaha la taabto joogiisa la fiiriyo armaajada la fiiriyo dharka armaajada la fiiriyo jeebkiisa la barbaaro ama boogta uu iskool ku dhigto hal la barbaaro waxa laga yaabaa in wax ugu jiraan ayaa laga yaabaa
intaa soo sheegay haddaad badankood isku aragtay waxaa shaki la-aana inaad adiga u baahan tahay inaad adiga qur-aan isa saarto. ma aha inaad u tagtay shiikh, ma aha inaad u tagtay shariif, ma aha in lagaaga ilaahay lasee kaa dhigo nin kaaga sokeeya. qofka ilmaha yarkaa hadduu yidhahdo asixir 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 asixir, qofka wax qabo boodboodaya, shaki kuma jiro. yaan lagaaga dhigin balaayo, yaan lagaaga dhigin adaa yaqaana, adigaa yaqaana. ha jinniga adaa yaqaana, ayadaha jinniga, isha ayadaha isha adaa yaqaana. marka qur-aanka ilaahay subxaana wa tacala adaa yaqaana. insha allahu tacaala walaalka muslimiinta waxaan rajaynayaa dadka isku arka calaamadahaas aan soo sheegay qaarkood ama qaar ka mid a waxaa weye ama il baa jirta, ama jin baa jira, ama sixir baa jira. intaasoo dhan marka walaalo waxaa qofka uu isaga daweyn karo waxaa weye kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala. yaquulu llahu subxaanahu wa tacaala, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaء waraxmat lilmuuminiin walaa yaziidu aalimiina ilaa khasaara. qur-aan baan soo dejiyay dawe raxmad u ah ilaahay iyo rasuulkiisa kuwa rumaysa sala allahu alayh wasalam. uma siyaadinayo kuwa dulmiga sameeya, gaalada ay horeyso, mushrikiinta, munaafiqiinta, mujrimiinta, ma arkaysa, ilaa hoog mooyaane wax kale kama qaadayaan. bal haddaad qofkan muslim uu yahay, muumin uu yahay, uu xanuunsado, dawadiisa waa qur-aanka kariimka. dadka maanta dhibka haysta waxaa ka mid a qof baa ii sheekeynayay, wallaahi ilaahay baan ku dhaartay, gabar yaroo skor qabtaa iigu timid cilaajka. gabadhaa qur-aankii 5 maalmood uu socday, maanta 6 buu ahaa. waxay leedahay 17 sana la noolahay bay tiri skortan. waxay yidhahdeen bay tiri dhaqaatiirtu waxay u yidhahdeen america gabadhaa ka timid, waa gabar yar, da-deeda ku qiyaas xaqiiqatan 23 sano iska dhe, basaan u malayna ilahay baa garanaye. waxay leedahay gabadha iyada ah waxay ugu yidhahdeen bay leedahay dhaqaatiirta, waxaa ku haya sokor, bal sokorta waxay kaa cunteen 2 keliyood. fiiri, 2daada keliyood waa dhinteen. haye waxaan rabnaa inaan kili kuu gelino. waxay tiri hadda markaad noqdo kili baa ii ballansan bay tiri, anigana waxay tiri wax aan dareemayo oo kili la-aan ah ma jirto, waan kaadiyaa. subxaan allah, caadi baan ahay. markay ibaaraan waxay leeyihin keliyahaaga waa finish. sokorta baal baa inta ugu xiran, waxay wadataa kaar taleefonka saa loo saarayo, dhidhidh sheegaya. maxaa hadda saar 135 bay noqotay, 135 ama 7 camal wax saasoo kala loo bedelo, 7 camal 135 xagga Soomaaliga laga isticmaala. marka waa meeshii qof caadi laga reebay wey. waxay dhahan baytri dhiikar baa qabtaa. dhiikarka ku haya iyo skorta ku haysaa sabab u ah 2 kilood inay dhintaan. wallaahi billaahi tullaahi jirkeedu waa nadiif. haddaa aragto waa qof aan waxba aanan qabin way. marka waxaan ku yidhi ballantaa ma laga baaqan karaa? may tiri qasab way. ka warrama wax qasaba ka warran. haddaa tirada ka warran aniga wari waxbaa ii dhimanay, bal kilaha ii qalino, kilaha iga bixina, kilaha ii gelina, makaa yeelayaan? may tiri waa qasab. hadda markaa noqdaa kelida laga qalayaa. marka allah idin naxariiso dadka dibadda jooga. waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala caafimaadka ma idin siiyo. gabadha ilahay caafimaad buu siiyey 5 maalmood, maanta 6 u ahayd. ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u qadarnay gabadha caafimaad hesho. waxaan rajaynayaa adi kulle ilahay waxaan ka rajaynaya maarata caafimaadtaa la siiyo calaa xaal. marka insha allahu tacaala walaalayaal intaasaan kusoo koobaya, waana ku dheeraaday barnaamijka. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. baarak allah.